magacaygu waa Ibrahim Xasan Cabdi waxaan ahay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dowladda goboleedka Jubbaland gaar ahaan aan ku suganahay xarunta ku meel gaarka ee magaalada Kismaayo waxaan saakay aan daba inuu hambaliyeeyo ama aan xusno bangiga IBS Bank oo daafur lagu sameeyay markii sanadku ahaa bisha 11 bisha 10aad 2014 maanta ay 10 jirsatay oo aan leeyahay waa 10 jirsatay maanta IBS Bank taas runtii aan aad iyo ummadda Soomaaliyeed ama caalamka ka faa'iideysteen yani horukaca ama horumarka ay soo kordhiyeen ku soo kordhiyeen wadanka sida kubadda dhaqaalaha waxaan u maleynayaa marka ugu horeysay maamulka gobolada oo mashiinka ATM laga furay oo qofku meeshu doono inuu kaarka kala soo bixi karo lacagtiisa waxa kale horumarka ay sameeyeen in Mastercard-ka ama lacagaha ninka ganacsatada markuu doonayo inuu alaab ka kasbado ama China ama German IBS Bank ay marka labada ganacsato ay soo heshiiyaan ay markaasi markay nuqulka heshiiska soo gaareen IBS ay damaanad buuxda awroore sida la sooteen ganacsatada ay dib weyn ama خسارة كسر جاري قرتي يقول لعقت عن ضمان لهن كنا أي بيس ضمان دو قاضي إن قف كل عقتيسي أنتوا ضمان مليون لما بقولوا كل مركز على تصق مركز سوق قرت تكلها صوماليا أما هن غضنا بوساس ومقديش كسمايو مركز سوق قرته أي مركز على قف مركز عنت وكليجو لعن ألابتيسي أي بيس مركز يفسح كرته بنجي جلبنا بنجي مثل كشينا جوجي مثل صوماليا جوجو marka waxyaalo badan ay soo kordhisay IBS Bank runtii xagga kubadda dhaqaalaha xagga shaqaalaynta xagga damaanadda xagga gaarsiinta dhammaan goboladaas ee Soomaaliya inay geyso mashiinka ATM-ka laga soo saaro lacagaha sidoo fudud uga soo qaado marka waxaan leeyahay waan u hambaliyeynaa marka waad iyo mar labaadba IBS Bank shaqada ay u hayso ummadda Soomaaliya hadday noqoto federal hadday noqoto maamul goboleedyada waan u hambalyeynaa maadaama ay 10 jirsadeen maanta waxaan u rajeynaynaa insha Allah taala inay sii kordhiyaan ay sii wadaan hab cusubada shaqada ay wadaan ee ummadda aan leeyahay waa ku qanacsan yihiin runtii habka u shaqeeyaan teknoolajiyada cusub ee gaareen waan u hambalyeynayaa